raali gelin arrintan ka bixinaysa dee dhimashadaas weligeed ma dhimi jirin si gabadh dhimatay aad u tiraahdaa yay saxeexayaan hantideed dee waxa taagan soo iyadun kuma laha dood ma qabtay xas ma leedahay adigu deg xamse baasha kuleelin eeg xas ma leedahay aan ogahay eeg haddaan kuleeliso kulaanaysa sheekh xas ma leedahay adigu dee anu alxamdulilah reer ka saxeexatay xaaskaaga marka i dhigiso eeg Waay. oo xamse doodda saa kuma noqonayso ma ka saxeexatay walaal horta doodan waxa qabo dumar anagu ma qabnaba dumarku su-aalaan weydiinay waxaanu ku odhanay gabadhay ninkii wuxuu ku siinayaa biil wuxuu ku siinayaa gabaati buu kaa bixinayaa yarad baa lagaa bixinayaa haddaad geel tiraa geel baa lagaa bixinayaa adduun waxaad u baahantahay waa kan raggii soomaalida horena way u bixin jireen iminkana way bixiyaan haddii ay raggii dhaqaalaha bixinayaan oy biil bixinayaan naxariis bixinayaan oo jacayl bixinayaan oy bixinayaan adig kalsooni ku siinayaan oy deganaasho ku siinayaan oo xasilooni ku siinayaan aduu ninkii maxaad siinaysaa gabadhi markii wuxuu kuula soo boodaysaa anu ubad baan u dhalaya markaasaan ku oranay dood waxa keentay ubad inaad dhalayso horta ma haystaba garantii inaad ubad ku dhalayso anu markaan guursanayo uma guursanayo ubad baad dhalaysaa de ilaahay wuxuu ku siinayo arsaaqdu bixinayo waa baab imisa ilaa madhalaysa ninkaad doona madhalays noqon kara gabadha madhalays noqon karta dad badan waxa isqaba aan ubad ilaahay kala helin oo wada nool dee noloshu ma aha ubad baanu kala helin oo keliyaad marka dumarkii markasta waxay ku leedahay ubadun bay ku carraysa mar haddii hablaha soomaalida la odhan lahaaba ha guursanina oo keliyaata uun ubadna si kalaad ku heli kartaan oo ni banaan ina guursan lahayn baan u malayn lahaaba nacam maqsuudka guurku naga qaldaya marka maxaan u baahannahay waan kuri inaan duruus siino dadkiina ku dhawniyo kooras baan u baahannahay ayno guurka dadka in la baro marka odhaahda imanaysa waa taas ta kale meesha timide walaalu ka xanaaqsan waxa weeyaan dadkeenii hore gabadha 100 geela laga bixin jiray 100 geel marka laga bixi xigsiin baa jirtay ana malaa waxay u fahmeen warranty ma haysataan guarantee ma haysataa oo hadalku waa luqadii kuma nagula hadlay laakiin luqadii hore waxay ahayd gabadhu haday ka dhimato xigsiin baa lagu siinay maanta xigsiintii ma jirta xamso dhaqamo qaar waxa jiraan oo qaba gabadha haday ka xumaatay in lagu bedelayo on ognahay markaasi maanta miyay jirtaa hadalka maxay ka keenay xamso hadalka waxba keenay waxa keenay kulaalka inta laga gaarsiyo waxa weeyaan gabdhii Soomaaliyeed waxa ku leeyahay raggu iyaga guriga baabiya iyaga reeraha dhaqanin iyaga dadkii dayacay iyaga maxay qaadlayaala iyaga meel kasta fadhiya halka mar lagu leeyahay Ilaahay baan kugu dhaariyay maanta hadaan xamso guurkaba ka kaalayo gaari waxa soo iibsatay $5,000 yareeba xisaabta aan ku keenan ku sheegay gaari baa siibtay $5,000 inaan yar ma iskaga dhiib maanta marka adigu ka xamsaana leex jecel soo kaama hayso adigu intaad qaado gidaar mad ku dhufan ninka Soomaaliyeed isagoo kharash guurkiisa ku bixinaya baa qaarkood 10 sano lacagta ururiyaan si uu guursan la Ilaahay baan kugu dhaariyay ma ninkaas gurigiisa ayr baabin kara intaan guri dhan la buuxiyo oo 10 sano aad ku dadaalayso oo gabadh raadinayso intay maanta intuu ninka dhado reer ma rabo guri ma rabo mi ayr baabinaya walaalo waxaan qaba waxa weeyaan ninka waxaasan guarantee ma haystaha oo maanta lagu leeyahay gabadh kale ku siinada ka xumaato haday ka dhimato ninka wuxuu qadarkan ma diidani qoftii qadar diidan meelo waxaan ku uri laakiin bal adu iskeen baan ku uri ninkan muxuu ku bareeray xitaa Ilaahay agtiisa waxba kama haystade haddii maanta qadar ku dhaco waa qadar deenin baa maanta milyaneera hal mar qadar ku dhici kara daaci laakiin hadalkaaga waxaad ku sheegtay in gabadhu haday dhimato iyo haddii ay dhali weydo labadaba hantida iga gashay yaa ay damaanad qaadaya ayaa wareysiga ku jirta daaci dad badan oo Soomaaliyeed arintaasi argagax bay ku keentay waanay ka gadoodeen baraha bulshada saacadii la soo dhaafay adigu maxaad uga jeeday bal isweydii anigu waxaan iyagan su'aasha ku celin waxay ahayd jawaab dumarka jawaaban weeyaan anigu jawaabani ii taalamay waxaan ku ninka waxaas oo kharash bixiyay gurigiisa inuu baabiyo masahlba miyay fududahay waan ilaa imkada waan qabaano dooda waxaan qabaa ninka waxaas oo dhiba dul qaadanaya de ma aha weeyaan gabadhu laakiin maxay la timaaday guriga maxay keentay xabaab wax waa laga bixiyay laga yaabo shandada yar guriga hooyada ka soo raacdo oo soo saamaada xamsi haddii taas ka soo raacday de barin bay koraysa kuma fahmin bayna kala kaxee ninkii baa bareeyay imise rag baan soo wacaya oo walaal ooyay imise raga ku soo wacay kula gabadhii baan karlaay imise cilaajida ku jira imise waashay raga xitaa qaadka lagu tumay qaad ku fadhiyaan wuxuu isdii bal gurigaaga inuu dhisnaado qaad ku mashquul oo maqaaxiya soo fadhiisanaya ta gurigiisa kuma qayl karo hadda xitaa anu qaadka cudurdaar siinay marka waxa weeyaan aan leeyahay xitaa kii dayacnaa ee ragaygiiba wuxuu u dayacan yahay isku luudaminaya ama uu dulman yahay waa waxa weeyaan inuu gurigiisa ka baaba'o ma rabo midda kale oo labaad oo dooda kale aynu qabnaana ay tahay waxa weeyaan war nin waxaasoo dhibaato ii soo gaadhay gurigiisa aayr kuma baabinayo
mana baabiyo gabadhii dooda ku jirta waxay tiri anaa ninka iska furay dumarkeeni midkaad weydiiso anaa ninka iska furay bay ku leedahay markaa maxaa kugu cad markaa yaa ummadan baabiyey markaa dad wanaagsan oo fiican way jiraan uma diidanidee laakiin meesha waxaan ka hadlaynaa dhaliil baanu saxaynaa anu dumarka Soomaaliyeed waxbaan ku dhaliilsanay ma caayo ma aflagaaday soo heli maysid hal meel oo aflagaado dumarku u geystay laakiin waxbaan dhaliil baan sheegaya waxbaan saxaynaa sheekh waxaad leedahay dumarka ma aflagaadeeyo saacadii la soo dhaafina si weyn baa baraha bulshada aad u galgashay adigoo hadal gaf ku ah haweenka jeediyay bal dhibaatada haweenkan mar walba dhaliilayso waxa dad badan oo Soomaaliyeed isweydiinayaan bal sheekh ayaa hablaha maxaa isku kiciyay xamsi inaad tiraahdo gaf waa qalad anu gabdhaha gaf waa gaf si gabadh dhimatay aad u tiraahdaa yay saxaayay hantideed deedo waxa taagan soo iyadun kuma laha dood ma qabtay xas ma leedahay deeg xamsi baasha kuleelin eeg xas ma leedahay anu ogahay eeg haddaan kuleeliso kulaanaysa sheekh xas ma leedahay de anu alxamdulillah reer waa saxaatay xaaskaaga markaa dhigiso eeg oo xamsi dood taa kuma noqonayso ma ka saxaatay de eeg xamsi dhigiso ina xidho barnaamijka noqonaysaa sheekh dhegeyso hablaha Soomaaliyeed xaaska ka soo qaad walaasha ka soo qaad hooyada ka soo qaad waxaan ku dhaleelay sheeg kelmadaha jeesaad ma jees kelmadda aan ku leeyahay inantu wax weyn waaranti gurigii baa baabay bilad adaa baabiyay anigu waxaan ku waxa soo riskiyaan ku galay kuma lihi anigu kuma gelayaba qadarka ilaahayna ma diidan waan ku galay waa lagu gelayaa ku kasto imin inuu ku gelayaa bal dadkayga naga horeey waxay haysteen baan ku yiri wax u bedelaya adigu maxaad haysataa xamsow dood wad keeni kartaa sheekh laakiin arinta dhimashaad keenta meeshii raalgelin arintan ka bixinaysa de dhimashadas waliba lama dhimi jirin iyadoo la dhintay ayaa hadana intii xigsiin loo siin xigsiintu waa maxay sheeg bal xigsiinta ifaansi sharxado xamsow ku weydiina wallahi xigsiinta ilaa hadda way jirtaa haddii gabadhi ka dhimato gabadh kale family laga yaabo lagu bedelo laakiin adigu waxa tiriya iyadoo nool hay saxeeda hantida aan ma saxeeyo ma hay saxeeda ma sheegan hay saxeeda miraha bulshada arinta soo wareegaysa no ma oraxdeed ma hadda hal ay saxeexa ma laakiin iyada dooda qabto war gabadha Soomaaliyeed waxay qabaan inaan inagu u baahnaynba iyagu noo baahnayn oo anagu aan baahannahay oo anagu guriga duminay oo anagu caruurtii aan dayacnay wax waliba maanta xitaa caruurta ay tahay kulada caruur baan ku dhalaya bal weydiiyo waxaad ku tiraa caruurtaadii dhalayso ma haysta caruurtayda lagama qaaday kulada ninkan caruurtoodu dhashay ba carsay ku dhe kuma oranayso ku siinay saa ku dibisay inaan ba soo garaacday inaan ka cabanaysa waxaan ku yiri walal ubadkiisa iska basiiba saar ma waaranta fiikus ubadkay u siiya de waayihi ii sheega xamsi anagu guurka ragga Soomaaliyeed dheebta dhifta wanaag iyo khayrka ay ku qabaan bal soo sheega dumarku maxaad ugu heelinaysaa wariyihiiba dumarku u heelinaya culimadiiba dumarku u heelinaysa hayadihiiba dumarku u heelinaya meel wasta waad u heelinaysaan anigaygaba u heelinaya oo le walaalayaalow guurku waxa weeyaan waxaad u baahan tihiin ininka baahi weyn u qaba ininka guriyaha u baahan ininka aayar ku soo galay ininka guriga duminaya anu iyagii baan leeyahay gurigiina ilaashada inan yamaniyada maanta waxa ku mahadsantahay inanta Sacuudiyaanada inanta Yemenada nin ma helay alxamdulillah bay qabtaa dahabna ma rabto waxna ma rabto iyada la yaa la ifurnu albaabka dadka baxdo kulay ninka carabka ku furaya kuweynana inaga la oranay hadal albaabka baxdo ku furaya sheekh dhawaan waxaad baraha bulshada ka sheegtay inaad Maroko tagayso waliina Hargeysa joogtaa maxaa ka dhigata xabadaas ma ka jawaab iska dacus raalgelin arintan ka bixinaysa de dhimashadas waliba lama dhimi jirin si gabadh dhimatay aad u tiraahdaa yay saxaayay hantideed deedo waxa taagan soo iyadun kuma laha dood ma qabtay xas ma leedahay deeg xamsi baasha kuleelin eeg xas ma leedahay anu ogahay eeg haddaan kuleeliso kulaanaysa sheekh xas ma leedahay de anu alxamdulillah reer waa saxaatay xaaskaaga markaa dhigiso eeg oo xamsi dood taa kuma noqonayso ma ka saxaatay walaal horta